بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جوا عبد الله حاشر وبدأي أفيانك الدولة جولات الجلمدوك ما أنت مركي ساعدوا أي هاي لحد الدهور نمو هي وحى مثقا محيا هاي تو أنا جوا مريا وضد هرمرتا عرون تبارلمان كجلا شعب كان بيجوز كسيدك وحجاري جاري كهر جاري إذا ما كترسن إذا كحسلين تجارهن كونه بالسجدة runtii markii ay ka soo degeen gaariga waxa la isku qabsaday asaga waay iyo ma ahan waa la fasaxay dib hadana gaariga la igu horjaray waa isaga la yiri ka soo degay la yiri gaariga dadka la ila saaraa dadka kale waa ay degeen gaariga markaan ka degay mobilada ayaa laga qaaday shaarkeyga ayaa la furay si xoog ah indhaha ayaa la iga xiray gaariga ayaa kor la iga tuuray runtii ma garan karo meesha la geeyay muddo ayaa la wareejinayay meel geedo iyo qodxa iyo isugu jirta oo god ayaa la geliyay markii intaas la sameeyay ayaa la ilaha waxaan la igu yiri waxa dhibaatada aad nagu hayso mid la mid aan ku geysan doonaa waxaan ku wariyo maxay tahay dhibaatada aan ku hayo waxba iimisan sheegin wali soo kaxeeyay hadana gaari kale ayaa la soo saaray meel aan isleeyahay waa guri ayaa la geeyay macnaha qaab meesha warmaxay meel gudaha ay ahayd laakiin meesha waa ka duwaneed markii meeshaas ay ahayd waa meel mugdi ay ahayd dhowr nin oo kaamirooyin mobile haysta joogay iyo dhowr nin oo qoryo wadata indhiga laga furay waxa la igu yiri adiga Soomaha mid ninka laga fakalayahay oo maalin walba qalbi dhagax iyo heblow ku haya soo adiga maaha ninka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ma taqaana maxay ahayd toddoba dhigtay soo adiga maaha ninka maalin walba ku haya ciidanka xasilinta qof dilay maanta adiga ku haysatay bal warna la yiri anigu waxaan ku warinayo nin xasaanad leh oo maamul afyaan u ahanahay ay dhiigay daartan waa fiiri kartaan haddii dambi la haystana ma taqaana cadeynteedii maxkamadda la iga yeero haddii wax afduubtaana wixii doona hal iga sameeyo markaas ayaa jardilka lagu bilaabay haraati iyo feer bareeska ayaa korontada la gashtay anigu u jeeda korontada lagu bilaabay intaas kadib waxa amar la igu siiyay qoryihiin inta la igu soo taagay hadaad noloshaada rabto inaad dharka oo dhan dhigto runtii dagaal dheer kadib dharkii ayaan dhigay iyadoo qoryihii lagu hayo kaamirooyin ayaa la soo qaatay sawirro ayaa la iga qaaday waxaana la igu yiri hal boosti oo madaxweyne farmaajo ama ra'iisul wasaare qayr ka mid ah hadaad soo dhigtid ama qalbi dhagax ka hadlay waxaan soo dhigi doonaa hal sawir oo sawirada hadaan ka qaadna ka mid ah markasta oo boost soo dhigtid markasta sawiraan soo dhigi doonaa waxa la igu yiri naftaada ilaasho sumcadaadana ilaasho iridda ka bax hadaad ma taqaana mar dambe maxay ahayd afaaraheena iyo afaaraha dawladda soo gasho markii dambe noloshaada way doontaa indhaha la iga xiray gaariga la igu soo tuuro gaarigaygu ahaa meel aan garanaynin ayaa gaariga la joojiyay maraan isleeyahay 10 daqiiqo wax shanqar ayaan waayay ayaan indhaha iska furay meeshu cid lay ahayd maamooyina ii dhawaa ma taqaana xaafadda Saybiano waxa la yiri waa weydiiyay war xageen taagana la yiri markaas la Saybiano taagan tahay nimankii kula socdana gaariga qaateen waa tageen dibkaas ayaa maanta la ii geystay waxa la iigu geystay waxa waaye maxay ahayd magaca dawladda waxa la iigu geystay waxa waaye magaca madaxweynaha waxa la iigu geystay waxa waaye magaca ra'iisul wasaaraha runtii mana filaynin marka hore oo aniga abduubayeen niyada waxa ay iga jirtay sidii shabaabkii kale shabaab ay ahaayeen laakiin markii maxay ahayd aan arkay iyo maxay taxarumaha dawladda la igeeyay iyo dhibaatada la ii geystay waxa ii soo baxday in dawladda Soomaaliya ay ugu talagashay dadka inay caburiso dadka inay dhibaateyso runtii waxayna ku kalifaysaa dhalinyarada aniga ila midka ah kuwa badan oo ficilkan maadaama qodan hore u socotay waxa jira dad badan oo iga horeeyay ficilkan lagu sameeyay laakiin garaw waayay ama la hawaay kartidii ay TV-ga inta la soo fadhiistaan ay kaga hadlaan dhibaatada loo geystay anigu waxaan qarinaya ma jirto dhibaatada noocaas la ii geystay hadaad doontaan caawa soo dhiga anigu qaawar hadaad doontaan caawa soo dhiga dulmiga aad ii geysateen aakhirana waa mid aan ka xisaabtami doono adduunkan haddii dawladda jirto waa mid sharciga aan isku la tagi doono ma ahan mid aan ka hari doono laga bilaabo xilligaana waa aaminsanahay inaad ii diyaariseen asasiino iyo dil iyo xarig intaba wixii hadda kadib aad geysataan kulli shacabka Soomaaliyeed marqaatiga ka yihiin adduunkana marqaatigu ka yahay wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.